daawadayaasha sida tooska ugu xiran channelka Dajiye waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa qiso aad u cajiib ah oo ku dhacday wiil Soomaaliyeed. Waxa uu dalbanayaa inaad taladaada saliimka ah aad ku beeriso caqabadaha nolosha ee la soo darsay. Waxa ay ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Garissa. Magaciisu waa Ibrahim Shariif. Waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida weyn ugu xiran barnaamijyada kala duwan ee aan idiin soo gudbino. Ibrahim dhibkan waxa uu ku dhacay taariikhdu markay ahayd bishii labaad sanadkii 2009. waxaana dhibkan uu la soo gaaray ilaa iyo sanadkan aynu ku guda jirno 2019. dhibanahan ayaa waxa uu ka dalbanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u duceeyaan isla markaana taladooda gaarka ah ee saliimka ah ay ku beeriyaan. waa maalinimo Arbaca ah bisha labaad sanadkii 2009. goor galab ah ayaan magaalada isku soo raacnay aniga iyo wiil saaxiibkay ah oo la yiraahdo Cabdirasaaq. magaalada markaan howlaheeni ka soo dhameysanay ayuu yiri saaxiibkay, soo bax ila mar cid habaryartay ah oo halkan degan si aan u sii salaano. waan ka yeelay oo waxaan nimid gurigii uu ii sheegay inaan booqanayno. cidda dad badan ayaa ku noolaa, intooda badanna maanan garanaynin, laakiin saaxiibkay ayaa guriga ay keenay. markii albaabka aan garaacnay waxaa naga furtay Fatima. waa gabar reerka ka mid ah, wayna salaantay labadeenaba oo si weyn ayay noo soo dhaweysay, weliba si heer sare ah. waan ka qaadnay kadibna waan iska soo baxnay markii qaraabo salaankii uu dhameystay saaxiibkay. anigu warba kama hayee gabadhii aragtida ayay igu caashaqday oo aragtidii koobaad ayay si weyn ii jamatay. ugu dambeyntii waxay ii soo dirtay wiilkii saaxiibkay ahaa ee Cabdirasaaq. isaga waa uu ii yimid oo iiga warbixiyay xaalka sida uu yahay iyo fariinta uu ii wado. nasiib darro, aniga weligay naag maanan shukaansan, inaan jaceyl u qaadana warkiisaba iska daa. da'deedu waxa ay ahayd 16 sano. waan yaabay oo waan ka diiday, laakiin muran dheer kadib waan aqbalay. mar uun inaan la kulmo habeenada ka mid ah ayaana booqanay gurigii gabadha ay joogtay, oo saaxiibkay Cabdirasaaq iyo aniga ayaa halkaasi wada tagnay. isla albaabkii markii aan garaacnay, Fatima ayaa qudheeda naga furtay albaabka. kadibna waxaan tagnay qolkii fadhiga. kadibna halkaasi ayaa isbarasho ay ka bilaabatay. oo wuxuu yiri, Ibrahim soo dhawow, waatan Fatima. Fatima adna abaayo, waa kan wiilkii Ibrahim ahaa. kadibna wuu naga dhex baxay. kadib Fatima waxa ay bilowday in jaceylkeeda dhabta ah ay ii soo bandhigato. laakiin waxaan maqli jiray haweenka alla naguma soo jeediyo nagalama kare, alla nagama jeediyo nagolama kare. waxba yaanan warka dheeraynin. Fatima iyo aniga habeenkaas waxaan ku heshiinay inaan bilowno xiriir jaceyl. kadib xiriirkeeni wuxuu gaaray xilli uu midba midka kale la'aantii hal daqiiqo uusan moogaan karin. annagoo ul iyo diirkeed ah doonaynayna inaan mustaqbal sameyno ayaa waxaa yimid wiil ay qaraabo ahaayeen Fatima. wiilkaas oo u sheegay inuu u qaadi doono waddanka Ingiriiska, halkaas oo ay ka bilaabi doonto waxbarasho heer jaamacadeed ah. way ii sheegtay runtii, aad ayaan uga naxay. iyada qudheeda raali kamaysan ahayn, balse ugu dambeyntii waxaan isku afgaranay inay iska baxdo oo ay Ingiriiska aado. midba midka kalena dhankiisa uu ka adkeeyo xiriirka jaceyl ee muddada dheer soo socday. way baxday. kadib xiriirkeeni wuxuu ka socday xagga internetka. waxaan saas ahaanaba waxay igu tiri habeenada ka mid ah leen ayaan kuu sameynayaa oo UK ayaan ku keenayaa oo isku meel ayaan ku noolaanaynaa. laakiin nasiib xumo way suuragali weysay. kadib waxaan ku heshiinay inaan soo tahriibo. kadib tahriib ayaan galay. waxaa laygu qabtay Liibiya, halkaas oo aan ku xirnaa muddo dhowr bilood ah oo aan ku rafaaday xabsigii. balse anigu waxaan watay baasaboor Kenyan
waxaa la igu soo celiyey dalka Kenya. Markaan dib ugu soo laabtay Kenya, waxaan bilaabay inaan raadiyo Fatuma halkii aan kala xiriiri jiray. Nasiib xumo, taleefanadeedii waan waayey, xagga iyo ciwaanadeedii aan ka wada xiriiri jirnayna waa waayey. Kadib bishii koowaad ee sanadkii 2012 ayaa warqad ii soo dhacday una qornayd sida tan: Assalaamu calaykum walaal Ibrahim, iga raali noqo, wixii dhacay waxay ahaayeen wax qadarnaa, calafka ayaana kala kaxeeyey. Haddaan ku qayaanay iga raali noqo. Hadda waxaan ahay xaas oo markaan ku waayey ayaan iska aroostay. Runtii waan qaracmay oo aan garan waayey meesha layga jiro. Gabadhii darteed aan tahriib u galay oo xabsi iyo dhibaato aan u maray oo maanta iga baxday. Waxba yaanan warka kuugu daalinin. Ugu dambeyn bishii toddobaad ee isla sanadkii 2012 ayay isoo wacday oo ay igu oysay oo ay qoomamaysay, laakiin waa ku gacan seeray kuna iri kuma rabo teelkayga iida iyo erayo la mid ah. Laakiin haddana waxay ii soo dirtay saaxiibkay Cabdirasaaq waxa uu in badan ka dharagsanaa xiriirkeena, halka uu marayo iyo caqabadaha nagu horgudbanaa. Haddaba guud ahaanba asxaabta ku xiran Dejiye Channel waxaan rabaa inay igala taliyaan. Mar labaad inaan Fatuma xiriir la bilaabo, niyadeeda kuma qanacsana oo marnaba inaan ku seexdo kuma soo kacayo. Haddana si joogto ah ayay ii soo wacaysaa oo waxay iga codsanaysaa in wax walbo iyadu ay samaysay qaladkaas ay qaratay ayna dib ka hagaajin doonto, laakiin xiriirkii dib loo soo celiyo. Hadda waa qof madax bannaan oo garoob ah, laakiin anigu mar ayay ii niyad jabisay oo diyaar uma ihi in mar kale aan xiriir la sameeyo. Haddaba asxaabtayda ku xiran Dejiye Channel waxaan ka codsanayaa in taladooda saliimka ah ay igu biiriyaan oo waxaan la socdaa commentiska ay soo bixin doonaan, waxaana qaadan doonaa talada meesha ay u badato. Haddaba daawade, qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Ibrahim waxa uu u baahan yahay maanta waa taladaada. Ileen horey ayay Soomaali u tiri, talada sideedaba adiga ayaa ku nool ee iyada kuguma noola. Waad garan kartaa qof dhalinyaro ah oo marxaladahaasi aad ku adag soo maray. Qofkii u sababta ahaa in noloshaas adag uu galana maanta ay leedahay dib ayaan u doonayaa in noloshaada ugu soo laabto. In qof walba uusan ku dhiiran karin in tallaabadaasi hore uu qaado. Annaga waxaan siinay talooyin kala duwan, laakiin weli waxa uu u baahan yahay talooyinka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Gaar ahaan waxa uu u baahan yahay talooyinka ka imaanaya dadka mucaashaqiinta ah ee ehelka dhowla ah dhanka iyo jacaylka. Mid ka mid ah suugaanta Soomaaliyeed ayaa waxa ay leedahay sida tan: haddaba daawade fikirkaaga saliimka ah dhankaas iyo commentiska ayaad noogu soo bixin kartaa, anagoona ka codsanayno inaad share garayso, subscribe aad inoo saarto, asxaabtaada kalena la wadaag barnaamijyada aadka u xiisaha badan ee noocan la mid ah ee aan kuu soo gudbino. mahadsanidin.